بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد ولا ليال والدرسيني شناد كتاب كني الهدي الواضح في دب عن معتقد السلف الصالح هذا ولا ليال وحن هرو سو قادنay إمام البخاري inuu awilay ضحكga sunnada ku soo arooray waxaana taa ka soo xiranay الحافظ البيهقي kitaabka uu qoray الأسماء والصفات lambarka 433 marka waxa kaloo ta'wiilkan Bukhari ka soo guuriyay inuu sidaas ضحكga u awilo raxmo uu ku awilay al-Imam al-Khattabi ayaa soo guuriyay waxa kaloo soo guuriyay xaafidka weyn ibn Hajar al-Asqalani isaguna uu soo guuriyay marka ta'wiilkan Bukhari oo ضحكga raxmo uu ku awilay waxay ku soo arooriyeen shubhadaasi waxay leedahay sanad ninkani ma sheegin kitaabkan qorayaa la yidhi bayhaqigii haddii dib aanu ugu laabanayna asaguna wax sanada ma sheegin waxaana la rabaa al-isnaad min addiin sanadkuna diintuu ka mid yahay waxaa loo baahan yahay sanad in la helo oo gelaya ilaa Bukhari inuu ضحكgan awilay caddaynaya shubhadaas jawaabkeeda walaalayaal waxaa weeye horta ضحكgan ta'wiilka Bukhari oo raxmo uu ku awilay waxaanu leenahay laa yaxtaaj ilaa sanad wax sanada uma baahna maxaa yeelay nusakh Bukhariga ka mid ah ayaa laga helay a'immaduna ay idlaac ku sameeyeen nusqooyin Bukhariga ka mid ah ayaa ku qoran tahay ضحكgan in raxmo lagu awilay waxaadna ka fahmi hadalka Fathul Baari xaafidka weyn Fathul Baari hadalka uu ku yidhi maxaa yeelay wuxuu yidhi Fathul Baari juska 8aad wuxuu ku yidhi markii uu ka hadlayay xadiiska يضحك الله إلى رجلين قال الخطابي شيخ خطابي وحو يري وأول البخاري بخاري هنا هل كان أن جوغنه رواية يضحك الله إلى رجلين خطابي وحكو أولي بخاري الضحك بالرحمة ضحك كان قصل كان إن قصل حقيقة لولا جيدين أو الرحمة لولا جيدو أيا بخاري أولي خطابي سلاس نهاية markaasuu wuxuu yidhi ibnu xajar walam taqac nusqadaas ma dhicin fi nusakhi alatii waqacat lanaa min albukhaariy nusqooyinka annagu aan hayno aanaan arkin buu yidhi oo kuma qorra waxaad ka fahmi hadalka xaafidka marka khadaabi inuu asagu nusqo daalacday oo ضحكgan raxmo Bukhari uu ku awilay matniga Bukhari inuu ka daalacday aad ka fahmi maxaa yeelay isagu xaafidku wuxuu leeyahay anigu nusqada aan hayo kuma qorra nusqadaan hayo kuma qorra maxaad ka fahmi nusqooyin kale in laga helay oo nusqadii Khadaabi ay ka mid tahay Khadaabina waxa weeye waxa la yidhaha awal man sharaxa al-Bukhari ayuu ahaa saxiixu al-Bukhari nin sharxa isagaa ugu horreeyey waana nin itilaac badan oo aad aqoon ugu leh nusqooyinka Bukhariga marka xaafidka naftiisu inuu ku qanacsan yahay Bukhari inay ka sugnaatay ضحكga inuu raxmo ku awilay inay ka sugnaatay inuu ku qanacsan yahay laba meelood ayuu sharaxa Bukhari uu ku soo guuriyey xaafidku inuu Bukhari ضحكga uu raxmo ku awilay laba meelood ayuu ku soo naqliyey oo uu ku soo guuriyey marka Khadaabi raalli ku noqday in Bukhari sanadkani uu ka ansaxay oo ضحكga inuu raxmo ku awilay xaafid ibn Hajar al-Asqalani yaa raalli ku noqday imaam al-Haafid al-Bayhaqi yaa raalli ku noqday marka tani waxaanu leenahay shubhadan uga jawaabaynaa nusqooyin qaar ayaa laga helay nusakhda Bukhariga in ضحكga lagu awilay raxmo sida laga fahmaayo hadalka xaafidka ibn Hajar al-Asqalani halkaasna waxaa ku dhamaaday shubhadii ay ta'wiilka ku soo arooriyeen walillahi alhamdu ala dhalik وأولا وحو أولي النضر بن شميل السلفي حديث حتى يضع الجبار فيها قدمه وأولا وحو أولي النضر بن شميل نضر بن شميل وحو أولي أسونا حديث حتى يضع الجبار جبارك إله كدجيه فيها جهنم دحديدا قدمه مخلوقيسي علميسا كهر مري إله كدجيه جهنم
qaala wuxuu yidhi nadru bnu shumayl inna macnaahu xadiiskan macnihiisu wuxuu yahay man sabaqa fii cilmih cilmigiisa wixii ku soo hormaray ayaa loola jeedaa annahu mankaasi min ahli naar inuu ka mid yahay dadka ilaahay uu ogaaday inay ahlu naarka ay yihiin dadkaas ayaa ilaahay ku dejiyaa naarta saasuu ku awilay oo marka waxaa meeshan ka cad ereygan qadamkan in ilaahay gomad xaqiiqiya aan lagu sifayn karin gomad xaqiiqo ah inaan ilaahay lagu sifayn karin taasna waxaa deliil u ah ta'wiilka uu sameeyey annadru bnu shumayl oo qadamkii uu ku awilay man sabaqa fii cilmih ilaahay cilmigiisii wixii ku soo hormaray oo annahu min ahli nnaar inuu ahlu naarka ka mid yahay ku hormaray ilaahay cilmigiisa dakara daalika waxaa ta'wiilkaas sheegay albayhaqiyu fi alasmaa' wasifaat ayuu ku sheegay safxada 330 ayuu ku sheegay wa naqala alxaafid safxadan marka uu ku sheegay waa sidaas iyaduna halkaas waxaa ka caddaaday qadamka ilaahay qadamka in la awilay oo nadru bnu shumayl uu ku awilay qofkii cilmiga ilaahay ku hormaray oo inuu ahlu naar yahay ku hormaray shubhadan waxay ku soo arooriyeen isagana waxay ku soo arooriyeen aan leeyahay ta'wiilkan sugan shubhay ku soo arooriyeen waxay yidhaaheen meeshani wax sanada lama sheegin wax sanad ah ama abtirsi ah looma sheegin ayay yidhaaheen dee meeshani walaalayaal waxaa weeye shayga marba hadduu noqdo shay dadka culimmada xufaadda ah ee waaweyn ee lagu kalsoon yahay ay soo guuriyeen marba hadduu noqdo dee waxaa lagu xambaaray iyagu inay idilaacdeen sanad ay daalacdeen sanad hadday idilaacdeen kalsoonida xufaadda ummaddu ay ku qabto ayaa markaas waxay istaagi kartaa booskii sanadka maxaa yeelay iyagu imaamulbayhaqi isagu sanad idilaac inuu ku sameeyey ayaa maaragtahay sanadka xadiiskan aad maaragtaa ay ugu dhowdahay in kasta oo wax sanada uusan u sheegin laakiin xaafid albayhaqi ayaa ku qancay ta'wiilkani inuu ka sugnaaday nadru bnu shumayl waana nin xaafida oo hiqa ah oo lagu kalsoon yahay walacallahu iطalaca calaa isnaadin inuu sanad daalacday ayaana aad ay ugu weyn tahay wa naqala alxaafidu wuxuu soo guuriyey ibnuljawsi xaafid ibnuljawsi wuxuu ku soo guuriyey fii kitaabihi dafci shubahi tashbiih safxada 223 walbayhaqiyu bayhaqina uu ku soo guuriyey fi alasmaa' wasifaat safxada 426 anna alimaama imaamka sufyaana bna cuyayna taawala imaamkaas inuu awilay xadiida aakhiru wad'atin wadi'aha araxmaanu biwajhin xadiiskaas inuu awilay sufyaanu bnu cuyayna ayaa wuxuu awilay xadiiskan aakhiru wad'atin wadi'aha araxmaanu biwajhin wadi'ahaadaas inaan loola jeedin istaagga oo aan la odhan karin ilaahay meeluu ku istaagaa ayuu awilay sufyaan wuxuuna ku awilay biqowlihi hadalkiisuu ku awilo uu yidhi inna macnaahu xadiiskan macnihiisu wuxuu yahay aakhiru ghaswatin duulaankii ugu dembeeyey ghaswadaasoo ghasahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay uu duulay sala allahu wasalam calayhi bidaa'ifin uu ku duulay aakhiru ghaswatin duulaankii ugu dembeeyey ghaswadaasoo ghasahaa rasuulullahi rasuulka ilaahay uu duulay sala allahu wasalam calayhi bidaa'ifin ay ahaatay daa'if ayay ahaatay duulaankii ugu dembeeyey oo nabi moxamed uu duulay sala allahu wasalam calayhi saasuu ku awilay oo marka waxaa weeye wadi'ahaadaas inaan loola jeedin istaaggii xaqiiqiga ahay oon la odhan karin ilaahay xaqiiq ahaanuu istaag u sameeyaa aan la odhan karin taas ayaa waxay deliil u tahay ta'wiilka sufyaan ibnu cuyayna uu awilay oo uu ku awilay waxaa loola jeedaa aakhiru ghaswatin ghasaha rasuulu llaahi sala allahu wasalam calayhi bidaa'if ta'wiilkan isagana shubhay ku soo arooriyeen shubho ayay ku soo arooriyeen shubhaday ku soo arooriyeen waxay ahayd waxay yidhahdeen xadiiskan saxiix maba ahaba xadiiskan sidan odhanahaya saxiix maba ahan
oo waa xadiis daciifa oon jirin haddii xadiisku uu daciif noqdo uu wax jiro uusan noqonna ta'wiilkuna isaguna waa la mid wax jira ma noqonaayo shubhadaas waxaan uga jawaabaynaa xadiiska horta culimmada dhexdooda khilaaf ayaa u dhexeeya aakhiru wad'atin wadi'aha raxmaan xadiiskeeda rag badan ee xufaadulxadiis ka mid culimmada axaadiista ka mida ayaana saxiix yeelay waxaa ka mid a sheekhan la yidhaaho manaawi kitaabkan faydulqadiirka ah ayuu ku saxiix yeelay xadiiskan xataa sheekhiinna adinku aad xagga tasxiixa aad u cuskataan annagu uma cuskannee ee albaani la yidhaaho ayaa xadiiskan wuxuu ku saxiix yeelay kitaabkiisa la yidhaha saxiixu ibnu maajah kitaabkiisa la yidhaha saxiixu ibnu maajah ayuu ku saxiix yeelay marka shubhadaasina halkaas ayay ku baaba'day walilaahi alxamdu maxaa yeeley xadiiska marba haddii la helo rag saxiix yeelay haddii la helo waxaa la ictimaadi karaa tasxiixooda ay saxiixiyeen ayaa la ictimaadi karaa faydulqadiirka ayaan u ictimaadaynaa oo sheekhan manaawi uu xadiiska ku tasxiix yeelay annagoo adinkeedin qancinaynana sheekhiinna xagga tasxiixa iyo tadciifka aad uga dambaysaan ee albaani naftiisu xadiiska wuxuu ku saxiix yeelay saxiixu ibnu maajah wadakara wuxuu xusay alimaamu addahabiyu imaamu dahabi wuxuu xusay fii siyari aclaami nubalaa siyar aclaami nubalaa siyarkaas waa kitaabka la yidhaha siyar aclaami nubalaa juska 7 safxada 418 wuxuu ku xusay anna alimaama maalikan raximahu allahu tacaala awala nusuula imaamu maalik inuu awilay soo degidda nusuulkaasoo alwaarida fi lxadiisi xadiiska ku soo arooray fa qaala wuxuu yidhi imaam addahabi qaala alimaamu maalikun raximahu allahu tacaala imaamu maalik wuxuu yidhi yenzilu rabbunaa rabbigeen waa soo degaa tabaaraka wa tacaala ay amruhu amarka ilaahayaa soo degaa laga wadaahu yidhi imaamu maalik soo degidda ilaahayaa huluthuleylka akhiirka ah habeenka qaybta ugu dambaysa ilaahaa soo dega waxaa laga wadaahu yidhi amarka ilaahay iyo naxariista ilaahayaa soo degta yaa sidaas ku awilay imaamu maalik ibnu anas fa amaa huwa ilaahay fa daa'iman waa alla daa'iman laa yazuulu ilaahay ma zuulo waa alla daa'ima ma zuulo ilaahay soo ma aragtid ta'wiilkaas wuxuu ka sugnaaday alimaam maalik ibnu anas ayuu ta'wiilkaasi ka sugnaaday marka qaala saalixun saalixa wuxuu yidhi saalix fi sanadu dakartu daalika ta'wiilkaasaan liyaxya bni bukayrin yaxya bni bukayr aan ta'wiilkaas imaamu maalik ayaan u sheegay oon u xusay fa qaala wuxuu yidhi xasanun waa ta'wiil wanaagsan wallaahi lam asmachu laakiin ta'wiilka anugu min maalik wallaahi anugu kamaanan maqlin laakiin waa ta'wiil aad u fiican buu yidhi halkan waxaa ka cad salafkii inay awilayaan soo degidda waxayna meelaha ku faafiyaan oo yidhaahaan nusuulka waxaa laga wadaa soo degid xaqiiqo ah qof meel kore ka soo degaaya oo hoos u soo degaaya soo degid xaqiiqa ah taas la mid a ayaa laga wadaahay ku leeyihi war heedhe ilaahay markaad tidhaha waa soo degaa oo xibinka dambuu soo degaa huluthulayl alakhiir 4 saacoo habeennimo ugu dambaysa ayuu soo degaa haddaad tidhi caalamka waad ogtihiin hadda wuu horo maray waa la ilbaxay annaga markii ay noo tahay 8 saac habeennimo dadaa waxay u tahay 4 saacoo habeennimo dadaa markaas waagu u beriyey dadaa markaas duhur dukanaya adduunka huluthuleylka aad leedihiin ilaaha xaqiiq ahaan u soo dega waa huluthuleylkee ma 8 saac oo jarmaniya ma 8 saac oo yuruba ma 8 saac oo afrika ma 8 saac oo sacuudiya xaggee wey 8 saac oo ilaahay soo dego mase waxaad leedihiin 8 saac oo maraykan markuu maraayana ilaahay markaasuu soo degaa haddana markii soomaaliya 8 saac habeennimo ay maraysana haddana soomaaliya soo degaa 8 saac ma waxaad leedihiin 8 saac oo haddana suudaan uu soo degaa haddana 8 saac markay marayso dubay ayuu soo degaa war waxaasi wax caqli xataa bini aadam uu rumaysan karo maaha ilaahay cawadaasoo dhan ma soo degiduu wadi haye
waxaa noqonaysa markaas soo degiddu inaysanba joogsanba maxaa yeelay annaga markii siddeedda saac annaga markay noo tahay qolaa markaas iyagana duhur tukanaya dee maanta oo dhan iyo habeenkaasoo dhan ilaahay ma nusuulu ku jiri hulusuleylka uu soo degood sheegaysaan bayinuu lanaa bayaanan shaafiyaa noo caddeeya waa kee hulusuleylka uu soo degaa waa kee ma hulusuleylka sacuudiya ma hulusuleylka maraykana ma hulusuleylka jordana waa kee amarka ilaahay ayaa soo dega saasuu ku awilay imaamu maalik marka taawiilka noocana waxay ku fureen tashwiish iyo shubho waxayna yidhaaheen sanadka waxaa ku jira nin la yidhaha xabiib ibnu abi xabiib ayaa ku jira yidhaah oo kaatibu maalik ah maalik qoraa u ahaa jiray ninkaasna waa daciifay yidhaaheen oo hadalkiisa lama qabsan karo taa marka walaalayaal shubhadaasi waa shubho aad daciif u ah waxaana leennahay raddigeeda aanu ku leennahay horta xabiib ibnu abi xabiib marba kaatibu maalik hadduu yahay oo imaamu maalik uu kitaabo ku aaminay inuu qoraa ka dhigto hadduu ku aaminay taasi waxay tusinaya tawhiiq imaamu maalik inuu ninkan u haysto nin run badan oo lagu kalsoon yahay inuu yahay waa tawhiiq sababtaa waxay tawhiiq u noqonee nin beenaalo ah oo eberkiisa ah oo daciifka ah imaamu maalik kuma aaminen kitaabo iyo qoraal inuu xadiis u qoro xadiis iyo cilmi inuu u qoro kuma aaminen midda kale wa calaa fardi dacfi ninkani inuu xataa daciif yahay haddii aanu qadarno sanadkani riwaayo kaluu ku soo arooray riwaayadaas uu ku soo aroorayna waxaa macnaha qoray ibnu cabdilbar kitaabkiisa la yidhaha atamhiid juska 8aad ayuu ku soo arooray sanad kale isagoo ku soo arooray haddii marka sanadkan shubha aad ku furteen dee ta'wiilka oo imaamu maalik sanad kale isagoo aan uusan ku jirin xabiibkan uusan ku jirin ayuu soo arooray midda kale imaamu maalik marba hadduu kaatib ka dhigtay taas ayaaba tusinaysaba ugu filan ninkani nin aamina inuu imaamu maalik agtiisa uu ka ahaa wa awala wuxuu awilay alimaamu imaamkiyaa wuxuu awilay sufyaanu bnu saciidin saciidkaasoo ibni masruuqin sufyaankaasoo athawriyu ee loo dhowri alladii sufyaankaasoo wasafahu dahabiyu dahabi biqowlihi uu ku tilmaamay huwa shaykhu lislaami wey imaamu alxufaadi xufaadda imaamkoodii wey sayidu alculamaa'i culimmada boqorkoodii wey culimmadaasoo alcaamiliina camal falah fii zamaanihi zamankiisuu boqor culimmada u ahaa qowlahu tacaala ayuu awilay wa huwa macakum aynamaa kuntum qaala wuxuu yidhi huwa macnuhu waxaa loola jeedaa cilmuhu ilaahay cilmigiis ayaa loola jeedaa huu yidhi ilaahay cilmigiis ayaa loola jeedaa huu yidhi marka waxaa meeshan waxaa ka cad sufyaanu thawri inuu awilay aayaddan wa huwa macakum ilaahay waa idinla jiraa cilmigiisa ayuu idinkula jiraa cilmigiisa ayuu idinkula jiraa soo ma aragtid cilmigiisa ayuu idinkula jiraa saasuu ku awilay sufyaanu thawri ee lagama wado ilaahay waa idinla jiraahoo meel walbaba daatadiisa idinla joogta maxaa yeele daatada ilahay makaan looma samayn karo waa tii aanu nidhi kaana walaa makaana kitaabka khudbadiisay ku jirta ilaahay waa ahaa jiray iyadoo wax makaana carshi iyo kursi iyo samaawaad aysan jirin ayuu ilaahay jiri jiray wa huwa al'aana haddeerna calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan makaanka intuusan abuurin suu ahaa jiray ayuu haddana ilaahay yahay subxaanahu wa tacaalaa isma uusan beddelin rabbi subxaanahu wa tacaalaa isma uusan beddelin ereygaas hadda caqiidada dhan saldhig u ah oo ah kaana walaa makaana huwa al'aana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan nimankani aaday ula dagaalameen ereygaa tashwiish fara badan iyo shubahaadna way ku fureen ilaa heer qaar iyaga ka mid oo yidhaaheen xaggee laga keenay yaa ku dhawaaqay wax ku dhawaaqay miyaa jira ereygaas oo caqiide ka dhigtay war waxaannu leennahay walaalayaal haddaad hanuunaysaan ereygan waxaa ku dhawaaqay salafu saalix ayaa ku dhawaaqay alimaam abulxasan alashcari oo mar walbaba aad ku noqnoqotaan oo mar walbaba maaragtaay aad tidhaahaan
nin wanaagsan u ahaa innagana hadda nin wanaagsan waa noo yahaye ninkaas salafka ah ayaa sidaas ereyga ugu dhawaaqay kaana walaa makaana huwa al'aana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan waxaadna kala xidhiidhi kartaa qofkii hanuun doonahayow kitaabka la yidhaha tabyiinu kadibi almuftari fii ma nusiba lilimaam abilxasan alashcari lambarkiisa 150 ayaad kala xidhiidhi kartaa waxaa kaloo hadalkan ku dhawaaqay sheekhii la odhan jiray abulisxaaq ashiraazi saaxibulmuhadab kitaabka muhadab la yidhaaho imaamu nawowi uu sharxay sheekhii iska lahaa isaguna hadalkan wuxuu sheegay nusuusta kitaabkii sunnada in lagala soo dhex baxay wuxuuna hadalkaa abulisxaaq ashiraazi ku sheegay kitaabkiisa la yidhaha al-ishaara ilaa madhabi alxaq lambarka waxaad kala xidhiidhi kartaa 151 waxaa kaloo hadalkan ku hadlay qayb ka mid ah saxaabadii nabigeenna sala allahu wasalam calayhi ayaa ku hadlay waana saxaabigii la odhan jiray caliyu bni abi taalib radia allahu tacaala canhu sayidunaa cali wuxuu dhihi jiray qad kaana walaa makaana wa huwa al'aana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan haddaad tidhaa hadalkaa sayd cali inuu yidhi maxaa caddayn u ah xaggeese kala xidhiidhi karaa qofkii hanuun doonayo wuxuu kala xidhiidhi karaa kitaabka la yidhaha alfarqu bayna alfiraq oo uu qoray cabdulqaahir albaqhdaadi oo geeriyooday taariikhu markuu ahaa 429 waxaadna kitaabkaas uu ka qoray lambarka 333 hadalkaas inuu sayd cali bin abi taalib uu yidhi marba haddiiba la hayo saxaabadii inay yidhaaheen hadalkan ay ku dhawaaqeen oo la hayo salafu saalix inay ku dhawaaqeen oo la hayo dadkii abulisxaaq ashiraazi oo qarniyadii afaraad ahaa inay ku dhawaaqeen adeerayaalo xaggee u socotaan dhammaantoodna ay nusuusta islaamka ay ka fahmeen haddaba ta'wiilkan walaalayaal hadda aannu marayno wa huwa macakum aynamaa kuntum ah shubhay ku fureen waxaan leeyahay midkan shubha kuma aysan furin kan waa u hoggaansameen walilahi alxamdu calaa dalik ilaahana ku mahadsan hal xabbo oo shubha tashwiisha way awoodi waayeen kan inay ku furaan waxay yidhaaheen ta'wiilkan huwa macakum ilaahay cilmigiisa ayaa meel walba idinla jooga oo sufyaanu thawri ka sugnaatay oo uu ku awilay waan qirsannahay waana u hoggaansannahay kaa sidaas ayay horta u iqraareen wax dagaal la yidhaha ama shubha yar la yidhaah way awoodi way u lahaa waaye inay la dagaalamaan ta'wiilka noocan ah waxaannu leennahayna ilaahay ayaa ku mahadsan inta kalena inay nagu waafaqaan ayaannu ilaahay ka rajayi doonnaa in shaa allahu tacaala wadaalika maa sidii naqalahu maaga alimaamu dahabiyu imaamu dahabi siduu soo guuriyey ta'wiilkan marka ay nagu waafaqeen waxa tanbiih iyo baraarujin waxaa mudan ta'wiilkan wahuwa macakum aynamaa kuntum oo cilmi uu ku awilay ma aysan odhannin sidii kuwii hore ay ku bushiyeen qaybo ka mid a sanad maa loo keeno iyo abtirsi maxaa yeelay waxay ka heleen masale iyagu ay xoogaa waafaqsan yihiin ayuu waafaqay ta'wiilkii marka wixii mashrabkooda waafaqsan hadday arkaan sanad iyo waxaas uma raadiyaan laakiin markay arkaan dadka ahlulxaqa ah adillada ay wataan markaasay shubha ku furaan oo yidhaaheen sanad aawey xaggaa qori kitaabkay qori yaa ku dhawaaqay sanad ha loo sameeyo markaasay yidhaahaan laakiin huwa cilmuhu ilaahay cilmigiisa inu meel walba ku joogo maadaama iyagu ay aaminsan yihiin oo caqiidadooda ay ka mid tahay annaguna aannu aaminsannahay kuma aysan furin tashwiish maxaa yeele mashrabkoodii ayuu waafaqsan yahay taasina waa wax tanbiih mudan oo tusinaysa tacasubkooda aad u fogaaday kamaa sidii naqalahu ta'wiilka alimaamu dahabi uu ku soo guuriyey fii siyar aclaami nubala kitaabka siyar aclaami nubala uu ku soo guuriyey juska 7 safxada 207 ayuu ku soo guuriyey 207 wa awala wuxuu awilay sufyaanu thawri aydan qowlahu tacaala sanastadrijuhum ilaahi waannu sabaansamaynaa min xaysu meel ayaannu ka sabaansamaynaa laa yaclamuuna aysan ogsoonayn meel aysan ogeyn ayaannu ka sabaansamaynaa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddani marka sabaansabitaan inaan ilaahay loo aanayn karin sirsir oon la odhan karin ilaahay waxbuu sirsiraa ayay selafku caddaynayaan qaala wuxuu yidhi sufyaanu thawri nusbiqu calayhim korkooda waxaannu ku dhammaystiraynaa annicama nicmooyinka ayaannu ku dhammaystiraynaa wa namnacuhum waxaana u diidaynaa ashukra
shukriga ayaan u diidaynaa nicmooyinkana waannu ku dhammaystiraynaa waxaana u diidaynaa inay nicmooyinkaa ka shukriyaan si loogu ciqaabo ta'wiilkan waxay yidhaaheen waa tafsiir maxaa yeele istidraajka waxaa la yidhaha isbaaqu nicam xagga luqa ahaan shubhada taasay shubha uga soo arooriyeen waxaannu leennahay walaalayaal taasi waxba kama jiraan istidraajka luqadiisa waa kanaa qawaamiistii inuu majaas ugu yimaado isbaaqu nicam waa jirtaa laakiin luqa ahaan maya luqa ahaan uguma yimaado maya luqa ahaan uguma yimaado waa ta'wiil wey luqa ahaan sidaa uguma yimaado qof walbana ha ka fiiriso qawaamiista adduunku ay qoreen halkaasna waxaa ku dhammaaday shubhadii iyadana kaa ay ku soo arooriyeen dakara daalika ta'wiilkaas waxaa xusay addahabiyu fii siyar aclaami nubalaa juska 7 safxada 190 ayuu ku xusay kadaalika sidaas oo kale awal almufasiru sheekha mufasirkaa wuxuu awilay mufasirkaasu alkabiiru weyn mufasirkaasu ataabiciyu ee taabiciga loo nisbeeyey mujaahidun qowl allahi tacaala ayuu awilay mujaahid ilaahay qowlkiisa uu yidhi an taquula nafsun yaa xasrataa calaa maa faratu fii janbi illaah an taquula nafsun naf inay tidhaaho yaa xasrataa alla qoomamadayda iyo shallaytadaydiyey calaa maa maladii kii aan ka shallaayahayo farratu aan ku xadgudbay fii janbi illaah ay fii amri illaah amarka ilaahay aan ku xadgudbay xilliga la shallaayi doono amarka ilaahay yaa lagu xadgudbay la shallaayi doono malu fiirso qaala mujaahid wuxuu yidhi yacnii wuxuu la jeedaa dayactu min amri illaah amarka ilaahay aan dayacay jambiga ilaahayaa dhinac le lama odhan karo saasuu mujaahid oo taabiciya uu ku awilay aayaddu daahirkeeda waxaad mooddaa dhinac laakiin dhinac ma ahane waxa weeye waxaa laga wadaa amarka ilaahay ayaa laga wadaa taasoo meesha ay ka baxayso ama ay ku baaba'ayso kuwan qaba ilaahay dhinacuu leeyahay oo qur-aankaa sheegay jambi ilaaha isku sifeeyey annaguna waannu ku sifaynaynaa ayay yidhaahaan taas waxaa diidaya ta'wiilka salafu saalix inuusan ilaahay jambi lahayn aayaddanna aan daahirkeeda loola jeedinoo dhinac xaqiiqaa inaan laga wadin soo ma aragtid dhinac xaqiiqaa inaan laga wadin ayuu maaragtaahay mujaahid isagu uu sheegi mujaahid inaan dhinac xaqiiqaa laga wadin ayuu isagu inoo sheegay oo laga wado amarka ilaahay ta'wiilkaasna shubhay ku soo arooriyeen walaalayaal waxaannu ku qaadan doonnaa casharadeenna kale ayaannu ku qaadan doonnaa in shaa allahu tacaala shubhadaas iyo baabi'inteedaba halkaasna walaalayaal waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii shanaad ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi dabi can muctaqadi salafi الsaalix wabiاllahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh